mudane Aliyo Marweyn kusoo dhawaada Garaadkaba Academy kusoo dhawaada barashada cryptocurrency-ga gaar ahaan qaybteeda bilaashka oo aad ka daawanaysaan mar walba si joogta channelkeena YouTube channel Garaadkaba Academy iyo sidoo kale Facebook page Garaadkaba Academy. maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago update ku saabsan suuqa sida uu yahay xaaladiisa ayaan insha Allah taala aan isla wadaagi doonaa. saad u jeedinba waxaan joognaa crypto bubble ayaan joognaa. suuqa maanta waa green waaye, indhaha aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay. marka dadka inta badan waxay jecel yihiin suuqa mar walba inuu sidaan green u ahaado ayay iska jecel yihiin, balse maahan midaasina mid sax ah ama dan inoogu jirta maahan marka aanu nahay marka reer cryptocurrency. sababtoo ah suuqani mar walba haddii uu kor marka uu jiro annaga ma iibsan karno, waa ma samayn karno buy iyo waxyaabahaasi ma samayn karno. lacag marka sidaasi u buuran ma haysano oo aan marka ku iibsano coinskaasi iyo waxyaabahaasi. marka sidaa darteed suuqani inuu hoos imaado marna kor aado waa marka sunnihiisa ay ka mid tahay. marka waa sunno waaye, marka wax oo marka natural ah waaye, dabiici iska ah waaye, caadi iska ah waaye, maahan wax marka aan dhici karin maahan. marka sidaas ay tahayna marka waxaa loo baahan yahay mar walbo inaad adkaysigeeda aad leedahay oo aad u samirto suuqa waqti aad geliso, coinanka aad iibsatayna aad u samirto sidoo kale in badan muddo aad siiso oo marka lacagtaadi aad kaga heli karto faa'iidada ah. marka haddaba markaas aad u jeedin hadda maanta la joogo taariikhdu waa 7 bisha 8 2025. suuqa waxaad u jeedin maalmihii u dambeeyay ilaa iyo shalay iyo maalmihii ka dambeeyay laga soo bilaabo taariikh 25 ama 27 ilaa iyo marka taariikh 6 oo shalay ku beeganaydba suuqa hoos ayuu u socday. marka balse hadda waa uu soo kabanaya oo u jeedin halkaani coinska marka dhaqaaq fiican ay sameeyeen qaarkood. waxaa kamid ah marka coinskaasi dhaqaaq fiican sameeyay virtual ayaa kamid ah ilaa iyo 10% ayuu dhaqaaqay. Solana 3% ay dhaqaaqday. sidoo kale Jupiter 5% ayuu dhaqaaqay ayaa lagu leeyahay halkaani. marka coinska aad iyo aad ay u farbadan yihiin. J-Link wuxuu dhaqaaqay ilaa iyo marka 7.5%, Algo wuxuu dhaqaaqay 8.8%, Bengu wuxuu dhaqaaqay 10.4% ayuu dhaqaaqay. marka dhammaan coinska sidaas waa niya saad u jeedin. Floki 6.4 ayuu dhaqaaqay, Bank wuxuu dhaqaaqay 8 ayuu dhaqaaqay. marka dhammaan coinska Ondo 6.6%, Zoo waxa uu dhaqaaqay 9.2% ayuu dhaqaaqay. marka coinska qaabkani waaye. markaas aad u jeedinba Bitcoin waxay maraysaa markaas aad u jeedin $116,555 ayay maraysaa. market capkeedu waa 2.32 trillion waaye. 24 volume-ka lacagta soo gashay marka qulqulka waa 36.39 bilyan waaye. okay, markaas aad u jeedin one day-geeda 2.1% faa'iido ayay samaysay. week-geeda waa -1.2, month waa +7.4%, year-keedana waa 108% waaye. sidoo kale Ethereum haddii aan fiirino waxay samaysay iyaduna sidoo kale ama ay maraysaa waqtigan la joogo 3,823. market capkeeda waa 461.42 bilyan. sidoo kale 24 volume-ka waa 28.26 bilyan waaye. sidoo kale 1 hour-keeda waa -0.3% waaye. day-geeda +6.1% waaye. week waa +1.2% waaye. month-geeda waa 48.7% waaye. year waa 55.7% ayay dhaqaaqday ayaa lagu leeyahay. marka XRP asiguna wuxuu marayaa $3 ayuu marayaa asiguna saad u jeedin. sidoo kale waxaa kamid ah BNB oo marka iyaduna maraysa ilaa iyo $773 oo BNB marka iyaduna dhaqaaq fiican ayay samaysay bishii la soo dhaafay July. sidoo kale Solana waxay maraysaa 170 ay maraysaa iyaduna sidoo kale market capkeedana waa 91.98 bilyan waaye. sidoo kale 24 volume-keedana waa 4.67 bilyan waaye, -0.8% waaye. 1 hour-ka day-ga waa +2.9% waaye. week-ga waa -3.2%. sidoo kale month waa 12.8
8% ay sameysay, yeerkeeda waa 18.7% ayuu sameeyay. haddii aan fiirino Zoo wuxuu marayaa 3.743 ayuu marayaa $3.74. market capkiisa waa 13.15 bilyan waaye. sidoo kale volumekiisana waa 1.44 bilyan waaye. 1 hourkiisa minus 0.9% waaye. 1 daygiisa plus 9.2% waaye. sidoo kale weegiisana waa minus 0.4 waaye. sidoo kale monthgiisa waa 29.6 oo percentage ah oo koror ah ayuu sameeyay oo dhaqaaqa 523 ayuu sameeyay yeerkiisana. marka dhammaan qaabkaasi waa J-Link waxay maraysaa ilaa iyo $17.71 ay maraysaa. marka coinsku dhaqaaq fiican ay sameeyeen maantay. Andu 0.98 ayuu marayaa asiguna sidoo kale. marka qaybtani waa qaybtii crypto bubble-ka. haddii aan tagno marka qaybta iyo coin market cap-ka waxaan arki karnaa qaybtani trending coinska trendiska ayaa halkan inooga muuqda oo ugu horeeyo Ethereum 3822.87 ayuu marayaa oo marka coinska trendiska ayuu ka mid yahay Ethereum oo hogaaminayo waliba. sidoo kale Memify ayaa asiguna ka mid ah 57.88 ayuu sameeyay. TST ayaa ka mid ah 0.02711 ay maraysaa minus waliba waa 32.79% ayay ku jirtaa. Omni ayaa ka mid ah 4 asiguna wuxuu marayaa $4.98 wuxuuna sameeyay marka 28.8 oo koror ah. Bengu ayaa ka mid ah iyaduna sidoo kale 0.0364 ay maraysaa waana 10.27 oo percentage ah ayay sameysay ama dhaqaaqa iyaduna sidoo kale. Dex scan trending waxaa ka marka Minu ayaa ka mid ah, Boss ayaa ka mid ah asiguna sidoo kale. JLB ayaa ka mid ah sidoo kale. waxaa kaloo ka mid ah asiguna sidoo kale IN ayaa ka mid ah. qeybahaasi ayaa Dex scanka ka mid ah. market capka haddii aan fiirino waa 3.82 trillion waaye guud ahaan market capka. sidoo kale haddii aan fiirino qeybtani altcoin seasonka waxaa marka uu maraya 36% ayuu maraya. weli Bitcoin ayaa marka haysata hogaankaasi. sidoo kale haddii aan fiirino qeybta fear and greed-ka cabsida iyo marka filashada haddii aan fiirino marka iyaduna waxay maraysaa 54 ay maraysaa. waxaana lagu leeyahay waa natural waaye qeyb marka iska caadi ah waaye marka cabsi sidaas ah ma jirto. sidoo kale marka rajo oo sidaas ah oo marka u fiican ma jirto ayaa lagu leeyahay marka. okay marka qaabkaasi waaye suuqa haddii aan fiirino Bitcoin waad u jeediin qiimaheeda halkaas ayuu maraya. haddaba marka waxaan rabaa inaan marka hore aan idin sheego mar kale suuqani walaal ma ahan suuq marka iska soconaya sidii nuclear irka loo diray iska soconaya ma ahan. marka suuqa marna kor ayuu aadi marna hoos ayuu aadi. midaasina waa faa'iido ayaa inooga jirta anaga. haddii hoos aadana haddii aad wax haysato xilligaasi waad ka faa'iideysani. haddii adiga aadan ka faa'iideysana kumanaan ama malaayiin qof ayaa marka ka faa'iideysanaya janskaasi fursadaasi. haddii adigu aad ka mid tahayna waa sidii la rabay alxamdulillah. haddii marka kor aadana waa sidii aan rabnay oo marka faa'iidadii aan filanaynay ayaan helaynaa oo marka dan ay inoo tahay. balse mar walba suuqa haddii aad aragto asigoo asaana maahan inaad ka cararto inaad ka baqdo inaad marka adigoo khasaaro ku jira minus ku jira aad lacagta aad ka soo saarto maahan. daraad maalmo ka hor suuqa hoos ayuu aaday saad u jeediinba haddana isla meeshiisii ayuu kusoo dhow yahay marka inuu kusoo laabto coin walba qiimihiisa ayuu marka hadda ku dhow yahay. tusaale Zoo haddii aan fiirino hadda daraadhow wuxuu gaaray ilaa iyo $4 meelahaas ayuu gaaray bishii hadda lasoo dhaafay. haddii maanthiga aan tagno fiiri waad u jeediin wuxuu gaaray ilaa iyo $4 iyo 20 iyo wuxuu gaaray $4 iyo 40 senti ayuu gaaray. waa goorme 27 July 2025 $4 iyo 40 senti ayuu gaaray Zoo. haddana wuxuu marayaa saad u jeediin $3 iyo 73 marka maalmo yar ayaa u dhaxaysa marka. sidoo kale marka haddii meelahaasi marka meel u dhow
aad kaga bixi lahayd ama aad DCA aad kusoo samayn lahayd mar kale. xitaa wuxuu gaaray daraad ilaa iyo $2 iyo meelahaas ayuu gaaray maalintaasi 27 maalmihii ka dambeeyay xitaa. haddana halkan ayuu maraya. marka coinska qaabkaasi waay ama guud ahaanba suuqa qaabkani ayuu u shaqeynaya. maahan in marka mar walba oo irka u soconayo, sidoo kalena maahan in mar walba hoos u soconayo, maahane mar walba balance waay. marka mar kor ayuu aadi, marna hoos ayuu aadi. labadaba marka adigu fursad ay ku tahay haddii adigu diyaar u tahay suuqani inaad marka aad ka qaraabato. marka haddaba marka waxaan rabaa dhowr coin oo yar marka oo inaan idinla wadaago haddii fursad aad u helayso inaad maalgashi aad ku samayn karto. haddii horey kugu maalgashanayn waxaan ku leeyahay keep garayso oo marka ha iska luminin fursadooda, ka faa'iideyso oo marka ha kuu shaqeeyaan coinankaadii. marka ku degdegin ayaan ku dhihi lahaa. coinskaasi waxaa ugu horeeya XRP ayaa ugu horeeya. XRP waxaan ku dhihi lahaa marka ka faa'iideyso oo marka haddii horey aad u maalgashatayna waa sidii la rabay. marka haddii hadda aad wax ku sii dari karta oo aad heli kartana DC aad ku samayn karto. maahan macnaheedu hadda waqtigan la joogo iibso inaan ku leeyahay maahan, balse haddii fursad uu bixiyo waa inaad ka faa'iideysataa ilaa iyo $2 iyo bar, $2.70 haddii aad ku aragto XRP fursadaasi marka iska beeldaraynin ayaa ku dhihi lahaa. marka XRP marka meelaha loo saadaalinayo bull rankigani weli waa ma uusan gaarin, xitaa uma dhowa, balse waan arki doonaa halka uu gaaro XRP. ilaa iyo $5 miyuu gaari karaa, $6 miyuu gaari karaa, sidoo kale $8 miyuu gaari karaa, 10 miyuu gaari karaa, waan arki doonaa. balse waxaa xaqiiq ah inuu gaari karo nambaradani hadda aan soo sheegnay mid ka mid a inuu gaari karo, waa xaqiiq la hubo waaye. marka keliya waxay qaadan kartaa waqti ay qaadan kartaa. okay, sidoo kale waxaa ka mid ah coinka labaad oo rabo waa coinka lagu magacaabo Zoo. asiguna wuxuu ka mid yahay coinka ugu macquulsan ayuu ka mid yahay. haddii aadan ku qaraabanaynin meme coinskani iyo tradeyadan iyo coinanka cusub, marka projectyada cusub ku dhisan oo aadan ku trade garaynaynin coinankani oo investmentiga for long term aad marka iska sugi karto. Zoo wuxuu ka mid yahay coinska ugu fiican ayuu ka mid yahay oo aniguna marka maalgashi ahaan for long investment aan ugu jiro. marka ka faa'iideyso asiguna. sidoo kale haddii aad ku aragto $3, $2.70 ilaa iyo $3 meesha u dhaxaysa haddii aad ku aragtana waad ka faa'iideysan kartaa Zoo asiguna. sidoo kale waxaa ka mid ah coinanka aan rabo inaan idinla wadaago coinka lagu magacaabo Ondu. asiguna ka faa'iideyso. weliba hadda Ondu meel aad iyo aad u hooseysa ayuu jooga, 0.9 ayuu maraya Ondu. haddii maanta aan fiirino 24.5 ayuu sameeyey saad u jeediin. sidoo kale 20 iyo marka wuxuu gaaray saad u jeediin 22 bishii July wuxuu gaaray $1 iyo marka eber 3 ayuu gaaray. haddana meeshaas ayuu maraya. marka coinanska dhammaantood waa sida waad u jeediin. mid walba marka wuxuu sameynaya dhaqaaq aan la filaynin ayuu sameynaya, mar ayuu marka uu qarxaya. sidoo kale Bangu ayaa ka mid ah coinskaasi, inkastoo meme coin uu yahay. siguna sidoo kale weli marka bishii lasoo dhaafay aad iyo aad ayuu marka dhaqaaq fiican u sameeyay. waa u jeediin dhaqaaqa uu sameeyay 139 oo percentage ah oo kor faa'iida ayuu sameeyay ayaa lagu leeyahay Bangu. marka asiguna waad ka faa'iideysan kartaa oo marka haddii Janis aad ku aragto. marka sidoo kale waxaa ka mid ah coinankani J-Link ayaa ka mid ah oo hadda qiimihiisa uu marayo $17 uu marayo. maanta haddii aan fiirino 30.4% oo kor ah ayuu sameeyey J-Link. sidoo kale week haddii aan fiirino asiguna intaas ayuu sameeyey. marka J-Link asiguna qaabkaasi waaye. marka qofkii marka awooda xoogo marka lacagtiisa inkastoo ay qaali tahay marka waa uu ka faa'iideysan karaa J-Link. marka waad u jeediin J-Link meelaha asiga uu gaaray waxaa ka mid ah meelahaasi ayaa hadda ka mid ah year marka aan fiirino meelahaas ayaa ka mid ah oo 28.84 waa marka bishii 12aad 16keeda 2024. okay, marka dhammaan marka coinskaasi ayaa ugu muhiimsan. Ethereum kolley kuma sheegayo, haddii aan ku sheegana
inta badan oo hadda dhalinteena nagu xiran sida aan qiyaasayo waa dhalin yar marka oo bilow iska waaye marka sidoo kale coinska way fara badan yihiin marka oo aad ka faa'iideysan karto hal iyo laba maahan balse waxay ku xiran tahay istiraatiijiyada aad marka la imaanayso suuqani ayay ku xiran tahay midaasi marka waxaan rabaa inaan mar kale aan idinku adkeeyo suuqani walaashaydii qaaliga ah ha ka ordin oo marka suuqani haddii aad aragto casaan maahan inaad iska ordo maahan haddii wiig aan ku dhufano hadda fiiri suuqani qaabkan ayuu ahaa wiig haddii aan ku dhufano labadaasi coin ama saddexdaasi coin ayaa marka faa'iido fiican sameeyey xoogo marka midkan 34 ayuu sameeyey mint sidoo kalena m asuna 52 ayuu sameeyey bumble.fun iyaduna waxay sameysay 16.6 ay sameysay week waaye marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa marka inaan ka faa'iideysano fursadaha suuqani uu bixinayo sidoo kalena aan sugno bisha October oo ah marka bil oo uga duwan dhammaan bilihii la soo maray sanadii la soo maray suuqani cryptocurrency waa bil lagu xisaabtamo waaye bisha October dhanka iyo suuqani cryptocurrency marka laga hadlayo waxay sameynaysaa bishaasi waxyaabo marka aan caadi ahayn ay sameynaysaa oo lagu ogyahay lagu bartay marka bishaasi ayaa soo socota marka qof walba bishaasi ayuu hadda marka ku xisaabtamaya oo marka u diyaar garoobaya marka waxyaabo far badan ayaa saameyn kara marka factors far badan ayaa saameyn kara inay waxyaabaasi ay dhacaan marka haddii aysan dhicinna marka kolley waa qadar waaye wax qoran waaye marka waxaanaga aan wax ka bedeli karno maahan balse waa fursad qaali ah oo qof walba oo suuqani ku jira marka la socdo oo uu ku xisaabtamayo waaye bisha October fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe-ta like-ta commentiga intuba dhankiina waaye haddii hore ina la joogtayna waad ku mahadsan tahay walaal daawashadaadii muuqaalkani iyo sidoo kale inaad ka mid tahay bahda Garaadka family waxaan idin leeyahay marka mar kale dhammaantiina soo dhawaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu